golaha deegaanka ee degmada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal ayaa maanta doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama kadib markii uu yeeshay golahaasi fadhigii ugu horeeyay tan iyo markii uu ku guuleystay doorashadii dhawaan ka dhacday degmada Boorama waxaana kulanka ka qayb galay 22 xubnood oo uu ka kooban yahay golaha deegaanka ee degmada Boorama taasi oo gudoominayay shirkaasi xubintii ugu daaweyneyd golaha ayaa gudoomiyahooda cusub u doortay Saleebaan Xasan Xaddi oo codadkii ay xubnaha golaha deegaanku dhiibteen ku helay 16 cod halka musharaxa la tartamay oo la yiraahdo Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo helay 5 xubnood waxa sidoo kale ay golahu gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Boorama u doorteen Maxamed Faarax musharaxa laga helay tartanka gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdi Cismaan Dhagaweyne ayaa isagu u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee laga doortay fadhigii golaha ay maanta ku yeesheen xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama in badan baa loo ololeynayay inaanu kala tagno laakiin waxaan ka ballan qaadayaa Saleebaan inaan la shaqayn doono annaa kuna kala tagaynin hawshii isriixriixa faraha badan ahayd ee ka jirtay magaalada Saleebaan mar labaadna waa kugu hambalyeynaya aad iyo aad baan u mahadsantiin gudoomiyaha la doortay ayaa isaguna uga mahad celiyay golaha sida ay codka u siiyeen isagoo ka codsaday inay u muujiyaan wada shaqayn waxaana ka mid ah hadaladiisii xildhibaanadu awal waxay oran jireen waa adiga Cabdi Cismaan wadna wareerseene hawsha naga soo gaabiya ilaahay baa soo gaabiyay waqtigii loogu talagalayna way gaadhay walaalkay Cabdi Cismaan waxaan mar labaad ugu hambaliyaynayaa sida sharafta badan ee uu iigu hambaliyeeyay ee uu iigu qoodhay kursigii aanu wada tartamaynay waa ku maahinta Cabdi Cismaan runtii waxaan filayaa intii tamartaya aniga oo ay garbahayga taagan yihiin 20 kale ee xildhibaan inaan tamartii la nageliyay aan u bedeli doono wax qabad hadduu Ilaahay yiraahdo madax badan baa halkan joogta kulay hadal weyn oo dambeeya waynu iskugu iman doonaa barxadda horumarka waxaanan idin ballan qaadayaa wixii aanu afkayga ka sheegi jirnay wixii macquul ah inaan qaban doono wixii hore campaign buu gudoomiyaha gobolka Awdal Axmed Xaddi Sidci oo fadhiga ka qayb galay ayaa ugu baaqay golaha deegaanka ee degmada Boorama inay la yimaadaan waxqabad buuxa inay fuliyaan ballantii ay bulshadooda ka qaadeen ee ahayd inay waxqabad u sameyn doonaan waxaana ka mid ah hadaladiisii ay sameeyeen 22 xildhibaan oo ay ku doorteen Saleebaan Xasan Xaddi inuu noqdo gudoomiyihii golaha deegaanka ee degmada Boorama waxaan kana halka ka sameeyaa gudoomiye ku-xigeenka ay u doorteen inuu noqdo waqtiga ay xildhibaanka xilkoogu uu jiro inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenkii golaha deegaanka ee degmada Boorama oo ah Maxamed Faarax soo kale waxa fadhigaasi adag ka jeediyay goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo markii ay fadhigaasi dhamaaday hadal dardaaran u jeediyay xubnaha golaha deegaanka ee doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub waxaana ka mid ah hadaladiisii wixii aad ku hadlayseen sida gudoomiyuhu sheegay ee campaign-ka ahaa hortiina waxaa iman doona arrin aad u culus baa iman doonta waxaase loo baahan yahay iskaashi iyo qorshe midaysan oo balangaraysan oo muddaysan oo priority kale leh oo muxuu noqonayaa berri maxaan qaban karnaa masalan 100 maalmood soo socda maxaan qaban karnaa iyadoo inta loo fadhiisto dhaqaale ahaan maxay u baahan tahay xoog maxay u baahan tahay iskaashi aan la yeelana 100 maalmood ummadda dad maqashiisiin waxa laga filayaa inaad ku ballan qaadin inaad filisiin golahan ayaa noqonaya golihii ugu horeeyay ku soo baxa codeynta shakhsiga halka golihii hore ee kan ka horeeyay oo ahaa mid lagu soo doortay qaabka liisaska xisbiga list party system Hashim Sheekh Umar Good Somali TV Boorama